Salaamu calaykum caruurey, jimco wanaagsan. Aynu ku sallina rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam. Fariida ayaa tihiin caruurey. Casharkan waa casharkii aynu ku baranaynay siirada nabiga sallallahu calayhi wasallam. Caruurey, rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam Maka ayuu imi. Hooyadii Aamina bintu Wahab ayuu u soo laabtay. Markii hore wuxuu la soo joogay Xaliimo oo waxay joogeen ku noolaayeen miyiga meesha la yiraahdo Diyaar Bani Sacad ayay ku noolaayeen. Xaliimo aad ayay u jecleed rasuulka sallallahu calayhi wasallam, waxaana rajaynaysay inuu la sii joogo waqti fara badan. Laakiin waxay u calisay Maxamed hooyadii, waayo way u baqatay iyadoo u malaynaysa inay jiraan wax dhibaya Maxamed. Laakiin may ogeyn inuu Ilaahay u soo diray rasuulka malag wanaagsan oo magaciisa la yiraahdo Jibriil si uu u daahiriyo wadnaha rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam. Shaydaankuna ma awoodi doono inuu saameeyo rasuulkeena. Caruurey, rasuulkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu la noolaa hooyadii. Magaalada Maka ayay ku noolaayeen. Magaalada Maka, caruurey, waa magaalo aad u qurux badan. Waxa ku yaala Kacbadii, beydkii Ilaahay ayaa ku yaala magaalada Maka. Caruurey, rasuulkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam wuu ku weynaaday magaaladii Maka. Da'diisii waxay gaadhay 6 sannadood isagoo ku koray naxariista iyo jacaylka hooyadii. Caruurey, maalin maalimaha ka mid ah, Aamina bintu Wahab rasuulka sallallahu calayhi wasallam hooyadii waxay u sheegtay Maxamed inay u safri doonaan magaalo kale. Magaaladaas oo ah magaalo qurux badan. Caruurey, magaalada magaceedu waa Madiina. Waxay u sheegtay inay halkaa u safri doonaan si ay ula soo kulmaan qaraabadiisa halkaa degan. Qaraabadaas oo ah kuwa jecel Maxamed oo sugayana qaraabadaas oo rabta inay arkaan Maxamed. Caruurey, qoyska Aamina bintu Wahab waxay ku noolaayeen magaalada Madiina. Caruurey, way safreen. Xabiibkeena rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam iyo hooyadii waxa raacay rasuulka awowgii Cabdimudallib iyo gabadhii barbaarinaysay rasuulka oo magaceeduna yahay Ummu Ayman. Way tageen magaaladii Madiina. Ehelkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ka soo jeeday xagga hooyadii markay Maxamed arkeen aad ayay ugu farxeen. Waqti wanaagsanna way wada qaateen. Kadibna caruurey, Aamina bintu Wahab waxay u sheegtay in la gaadhay waqtigii ay ku noqon lahaayeen magaalada Maka, waana isku diyaariyeen safarkii ay ku laaban lahaayeen. Caruurey, waa inoo casharkeena dambe insha Allah. Salaamu calaykum caruurey.